السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani oo xusuusaye maanta qisadeenu waxay ku saabsan tahay suurad gaaban. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آية كوبان balse xambaarsan mucjiso quraan ah oo aad u weyn. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu inoo soo bandhigayaa dhacdo taariikhi ah oo aan ahayn kaliya sheeko la xuso ee ahayd muujin awood rabbaani ah. awood uu ku ilaaliyay beedkiisa xurmada leh gurigii barakeysnaa ay dhiseen Nabi Ibraahim iyo Nabi Ismaaciil calayhi salaam si uu u ahaado astaan tawxiid iyo cibaado daahir ah. Daba si aynu u dhuxno qoto dheerida dhacdadan waa inaynu dhacyo badan ka eegno. Aan marka hore isla sawirno xaaladda jasiiradda Carabta waqtigaas. Warar cabsile ayaa faafaya, ciidan xoog leh ayaa soo socda Makka, ma lahayn ciidan ay ku difaacdo Kacbada, ma lahayn boqortooyo ay u gurmato. waxay sugaysay musiibo muuqata, hase yeeshee halka indhaha dadku ay ku arkayeen khatar soo food leh. xigmadda Ilaahay waxay diyaarinaysay wax ka weyn wax la arkayay, waayo sanadkaasi ma ahayn sanad burbur oo kaliya, wuxuu ahaa sanad uu burburku gogol u noqday bilow cusub. isla sanadkaas oo markii dambe loo bixiyay caamul fiil, waxaa dunida ku soo biiray nabigeen Muxamed, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, nuurkii iftiimin lahaa mugdiga jahliga bani aadamka. taasna waxaa caddayn u ah hadalkii saxaabiga Qays bin Makhram radiyallahu anhu oo yiri, aniga iyo rasuulkeen nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaan wada dhalanay sanadkii maroodiga. tani ma ahan iswaafaq taariikheed oo iska timid, waxay tilmaamaysaa in Ilaahay markii hore nadiifiyay beedkiisa ka hor inta uusan soo bixin nuurkii bedeli lahaa taariikhda aadanaha. haddaba aynu u leexino dhanka Yemen si aynu u raacno halka ay arrintu ka soo bilaabatay. halkaas waxaa ka talinaya Abraha al-Ashram oo wakiil u ahaa Najaashiga kibir iyo xaasnimo darteed. wuxuu sanaa dalka Yemen ka dhisay kaniisad aad u weyn oo loo bixiyay Al-Qulays. ujeedadiisu ma ahayn dhismo oo kaliya, waxay ahayd in qalbiyada Carabta laga leexiyo Kacbada, laakiin quluubta laguma iibsado dhagaxaan la qurxiyay. beedka Kacbada ah wuxuu leeyahay Rabbi jaceylkiisa ku beera quluubta aadanaha. markii uu Abraha arkay in qorshihiisu fashilmay, kibirkii wuxuu isu bedelay caro, caradiina waxay isu bedeshay go'aan in xog lagu dumiyo waxaan lagu bedeli karin xayeysiis iyo qurxin. marka Abraamo wuxuu soo ururiyay ciidan aad u weyn, kuwaas oo horkacayeen maroodiyaal oo ahaa hubkii ugu cabsida badnaa waqtigaas. halkaas ayaana magaca qisadu ka timid. sidaas ayuuna ciidankii u soo dhaqaaqay dhanka Makka, isagoo go'aansaday inuu Kacbada dhulka la simo. inta aynan sii raacin socodka ciidankaas kibirka huwan, aynu hakano hal daqiiqo. taariikhdu ma aha in la akhriyo ama la dhageysto kaliya, waa in la dareemo. isku day hadda inaad ka soo baxdo doorka akhristaha ama dhageystaha, una soo gudubto gudaha masraxa dhacdada. naftaada geli booskii reer Makka. isku day inaad maqasho nicaawda absi xambaarsan ee magaalada dhex wareegaysa, inaad aragto wejiyada welwelka leh, inaad dareento aamusnaanta ka hor duufaanta. ma ahan qiso aad daawanayso, waa xaaladaad dhex taagan tahay. warar isdabajoog ah oo sheegaya in ciidan la iska celin karin uu ku soo wajahan yahay. sidaas darteed maxay sameeyeen reer Makka xaaladan adag dhexdeeda? waxay durbadiiba qirteen daciifnimadooda, waxay magan galeen Rabbiga beedka xurmada leh. go'aankoodu ma ahayn mid ku dhisan awood la waayay, ee wuxuu ahaa mid ku dhisan aqoon la helay. aqoonta ah in beedka uu leeyahay Ilaahay ka awood weyn cid kasta oo ku soo xadgudubta. markii ay sidaas qalbiyada u saareen, waxay ka guureen cabsi una gudbeen kalsooni. guryahoodii ayay ka baxeen, buuraha iyo banaanka ayay aadeen, waxayna fagaaraha u baneeyeen Ilaaha beedka si uu u ilaaliyo beedkiisa. tani ma ahayn quus, waxay ahayd tawakkul dhab ah. farqiga u dhaxeeya quusta iyo tawakkulka waa mid qarsoon, balse natiijadiisu waa mid aad u fog. quustu waxay ka timaadaa qalbi jab, tawakkulkuna wuxuu ku yimaadaa qalbi yaqaan cidda uu ku tirsan yahay. reer Makka waxay doorteen kan labaad. markii uu ciidankii kibirka badnaa soo dhawaaday, isagoo u malaynaya inaanu waxba hor istaagi karin, faragelin rabbaani ayaa timid. Ilaahay ma uusan ku halaagin cudud muuqata oo dadku filayeen, ma uusan u dirin musiibo indhaha lagu cabsi geliyo
wuxuu u soo diray shimbiro yaryar balse wata amar weyn. kutubta tafsiirka qaarkood waxay xuseen in shimbir kasta ay sidatay 3 dhagax. dhagaxaantu waxay ahaayeen dhoobo la gubay. ciidankii tirada badnaa iyo maroodiyaashii waaweynaa waxay isu bedeleen sida caleemo qalalan oo la cunay. awood bini'aadanimo oo dhan ayaa ku burburtay amar rabbaani ah. kutubta siirada waxay sheegeen in Abraha ku laabtay Yemen isagoo guul darro iyo halaag dhabarka ku sita, jirkiisuna bilaabay inuu burburo ilaa uu ka dhintay geeri aad u foolxun. balse dhimashadiisu ma aha fariinta ugu weyn. dhacdooyinka marka qaar waxay ku ekaadaan magac iyo taariikh. qur-aankuse ma xuso qisada si uu u diiwaangeliyo dhimasho, wuxuu u xusaa si uu u nooleeyo qalbi. halkaas ayaana fariinta ka bilaamaysaa. qisadu ma ahan oo keliya sheeko taariikheed, waa cashar weligiis nool. waxayna tusaysaa in awooddu aysan ku xirnayn tiro iyo hub, in kibirku uu leeyahay dhammaad la hubo, in Ilaahay difaaco kuwa xaqa ku taagan. reer Maka ma lahayn ciidan, balse waxay lahaayeen tawakkul. Abraha wuxuu watay awood muuqata, hase ahaatee ma lahayn ogolaanshaha Rabbiga. sidaas ay miisaanada dhabta ahi u shaqeeyaan. haddii maanta aad la kulanto culays u muuqda mid ka weyn awooddaada ama xaalad aad leedahay, ma jirto jid aad kaga bixi karto. ha iloobin xaqiiqadan: Rabbiga ilaaliyey beedkiisa maalintii la isku haleeyey maroodiyaasha. weligiis awooddiisu ma yaraato, gargaaridiisuna ma soo dacdo marka wakhtigiisu yimaado. suuraddan gaaban aynu soo wada xifdinay yaraanteennii ma ahan oo keliya xusuus taariikheed ee ku qoran qur-aanka, balse waa dhambaal nool oo loogu talagalay inuu inagu weheliyo duruufaha adag aynu dhex jibaaxayno. waana xusuusin joogto ah oo qalbiga lagu soo celiyo mar kasta oo noloshu cuslaato. maadaama iftiinka qur-aanku yahay mid sii kordha marka la faafiyo, xasilooniduna ay macaan tahay marka lala wadaago dadka kugu xeeran. haddaba si aynu khayrka u baahino, haddii fariintaani qalbigaaga wax ka taabatay, la wadaag asxaabtaada iyo kuwa aad jeceshahay. waxaa laga yaabaa in xusuusin yar oo aad dirto ay noqoto sabab qof kale uu helo rajo iyo xasilooni. sidoo kale, haddii aad rabto qisooyin noocan oo kale ah, waad la socon kartaa boggan si aynu u sii wadno milicsiga qur-aanka iyo siirada una wada barano casharo nolosheen iftiimiya.